ku dhacdo ilmihii isagoo aan la talaalin waxaa la rabaa markii lagu arko calaamadaha jadeecada in ilmaha lala soo xiriirsiiyo goobta caafimaadka si looga hortago waxyaabaha ay keeni karto jadeecadu ay ka mid tahay indho la'aantu iyadoo looga hortagi karo lana siinayo ninka faytamiinka mashruucan aan ka shaqeyno nutritionka iyo caafimaadku waxaan ka howlgalnaa gobolada Sool, Sanaag iyo Highland. adeegyada ka socda waxay isugu jiraan daaweyn, quudin iyo wacyigelin ay isugu jiraan. waxaan mashruucan aan bilownay bishii Abriil ee sanadkii la soo dhaafay 2016. mashruucan waxaa ka faa'iideysta ku dhawaad 82,000 oo qof ayaa ka faa'iideysta. mashruucan wuxuu gaar u yahay hooyada iyo dhallaanka. waxyaabaha aan bixino waxaa ka mid ah daaweynta iyo nafaqeynta oo isugu jirta busudka plumpinatka ah iyo daawooyinka aasaasiga ah. مسكن وحوي مسكن كلمة ميزان أبوه وصية قصية كبعد مركز عسين سفرها يا دقنسا كعمها يا دقنسا المها يرنا أفنا وولد قصا كعمها وولد قصا انطلق قهر بس من تشان وقتي روتي برقدي عصركي حبينكي شان وقتي انطلق قهر بس نسا ما أنت وجه واحد ما هو البقراء وشكله هذا في عينه أنا واسين على دوانه ugu dadaala sida had baan ilaahan u siiyay baan u siiyay qolatan lahaynay la soo xiriiraan shaqada oo ay aroorta keenaan qofka nafaqada daran qofka xanuunsanaya ciyaalkan waxa la dhaca Maka iyo Madiina iyo wiilkan waxa la dhaca Cabdishakuur markii hore way iga xanuunsadeen waxa iga dhacay shuban waxaan keenay goobta caafimaadka way igu soo dhaweeyeen gabdhaha caafimaadka u shaqeeya ka bacdina waxay siiyeen shuban joojiye oo aalis كبعد بسكول كالله بلعبة شروبين بالسيء عيالكي أد بمركا في عنادين مركا سوق لين مدحين ميزان كود أد بوه سيمان تاني ميزان كود أد بوه في عيال ويكبحين صدق حدود مان تود ميزان أنا خير إن بدن بيجي حنو السنة تاريخ لهنا ما الله مري دول بدن بالله مري مقالوين بدن بالله مري waxa alla igu soo dhiibay maxaan ku yiraahday MCH kan Galdoora anigu in badan la tabcaansan baan la in marka dawooyin bay siisay dawooyinka ay siisay ilaahay waa igu midnaysiiyay isniintii waan halka ku umulay isbitaalka si fiican baan loogu shaqeeyay 7 caruur kala ku 7 baan soo umulay alxamdulillaah rabbil caalamiin haddana caafimaadkay waa fiican yahay aad baan dareemayaa si fiican baan loogu shaqeeyay barnaamijka dadka ka faa'iideystay oo halkan noogu yimid waad aragtaan waxa u badan hadeertadan dadkan dambe oo dhan oo aan hadeer qornay waa dadkii miyiga ka soo xarooday maxay hatay caruurahoodii oo MCH ka lagu soo xiray iyadoo la soo sameeyay asbuuc walba waxaan sameeynaa banaankan u baxnaa guriyahan tagnaa guri baan tagnaa soo iskin gareynaa MCH ka dhexdiisa ka socda oo ay noogu yimaadaan xilliyadan raashinka bixinayno kale tooyo iska adeeg doonayso oo ilmo nafaqa daran sida taway jirta iyadana aan halka ku iskin gareynay guriga loogu tagaa asbuuc walba iyagana bal soo iskin gareeyaa ilmihii nafaqada daran maxay halkaas MCH ka loogu soo diraa maanta waa aragnaa MCH-ki dad badan baa nala jooga hooyooyin iyo caruur ka faa'iideysanaya barnaamijka ay noo qabato taas waan u mahad celinaynaa saas kale waxaan u mahadcelinaynaa qolada UNICEF iyo mashruucan fangareynaysa iyo wasaaradda wada integration programka oo ku wada jirno waxaan jeclaysan lahayn in UNICEF iyo taas inay mashruucyada noo sii ballaariyaan iyadoo loo baahan yahay xarumo badan oo la fangareeyo oo mashruucyadaas kale laga furo muhiimad gaar ayuu u lahaa gobolka maadaama abaarihii ay sababeen nafaqa darro iyo xanuuno kaleeto oo abaarta la socday insha Allah taala
waxaan rajaynaynaa in lasii ballaariyo labadaas sektor ama labada qayboodba hay-adda taas iyo UNICEF oo partner leeyihiin in ay xarumaha hooyada iyo dhallaanka noo ballaariyaan maadaama baahi loo qabo gobolkuna ballaaran yahay dadkuna uu badan yahay loona baahan yahay xarumo bukaanjiif oo dadkaas maaragtay aan gaadhi karin meelaha fogfog si loogu daryeelo mashruucan intii aanu ku guda jirnay waxaa ka faa'iideystay ku dhowaad 25,000 oo qof oo isugu jira caruurta da'doodu 5 sano ay ka yar tahay iyo in ka badan 15,000 oo hooyo oo isugu jira hooyooyinka uurka leh iyo hooyooyinka maaragtay nuujiya mashruucan wuxuu aas u yahay bulshada waxayna ka helayaan faa'iidooyin badan waxaan rajaynayaa oo aan ku baraarujinayaa bulshadu inay mashruucan uu yahay mashruuc lacag la'aan ah oo hooyada iyo dhallaanka loogu talagalay sidaa